dhowr qof baa ilaa hadda ku dhintay caasimadda ama daad socdo galay ama xorfado ku dabaashay dhalinyaro ilaa 4 meeyda booliisku gacan soo saareen xalay ilaa maanta ogtiin waxaanu ummadda ku wargelinaynaa inay bilaabmeen roobabkii guga oo ay meelo badan oo dalka ka mid ah ka da'een togag iyo dooxyo badan oo biyo ka socdaan baa jira xorfado badan oo buuxsamay ama balliyo ayaa jira dhowr qof baa ilaa hadda ku dhintay caasimadda ama daad socdo galay ama xorfado ku dabaashay dhalinyaro ilaa 4 meeyda booliisku gacan soo saareen xalay ilaa maanta dadku markay isa soo taagaan meel biyo socdaan hadduu baabuur wato ha sugo inta daadku waa muddo yar wuxuu ku dhamaanaya daadku inuu ka socdo magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo caasimadda iyo magaalo madaxyada gobolada baaritaan lagu wado gaadiidka soconaya iskoys kasta ciidan baa istaagan waxa la baarayaa baabuurta waxa laga baarayaa wax kasta oo dambi ah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عاوة waxaan halkan kaga hadlaynaa dhowr qodob oo khuseeya ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliland ama ilaalinta iyo socodsiinta shuruucda qaranka qodobka koowaad ee halkan aan ummadda kala hadlaynaa caawa waxa weeye waxaan ku wargelinaynaa dadka inuu ka socdo magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo caasimadda iyo magaalo madaxyada gobolada iyo magaalooyinka magaalo madaxyada degmooyinka baaritaan lagu wado gaadiidka soconaya iskoys kasta ciidan baa istaagan waxa la baarayaa baabuurta waxa laga baarayaa wax kasta oo dambi ah hubku ha ugu horeeyo hub qoryo bistoolado ama hub kale toori seefo wax kasta oo wax lagu dilo ama nabadgelyada khalkhal lagu geliyo baa laga baarayaa waxa kale oo laga baarayaa wax kasta oo faldambiyeed la xidhiidha arrinka oo booliisku wado waxaanu ummadda ku wargelinaynaa ama ka codsanaynaa inay booliiska ku gacan siiyaan wax kasta ay arkaan la socodsiiyaan wixii awaamiira arrinta khuseeyana ay qaataan kuna dhaqmaan ama aqbalaan dadweynaha ama darawaliinta wadata gaadiidka la baarayo qodobka labaad ee aan dadweynaha la socodsiinaynaa wuxuu yahay waxaynu ku jiraa bariyahan u diyaar garowga dabaaldegii bisha May 18 May oo meel kasta oo dalka ka socota taana iyadoo booliisku ka shaqeynayo wixii khuseeya la dagaalanka hortaga ama la dagaalanka dambiyada waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa sidii caadada inoo ahayd ee ay booliiska ula shaqeyn jireen inay arrimaha kala shaqeeyaan ilaalinta nabadgelyada awgeed soo sheegaan booliiska wax kasta oo ay arkaan wixii ay la kulmaanna ku gacan siiyaan ciidanka ee ay qabanayaan qodobka saddexaad waxa weeye sidaa ogtihiin waxaanu ummadda ku wargelinaynaa inay bilaabmeen roobabkii guga oo ay meelo badan oo dalka ka mid ah ka da'een togag iyo dooxyo badan oo biyo ka socdaan baa jira xorfado badan oo buuxsamay ama balliyo ayaa jira dhowr qof baa ilaa hadda ku dhintay caasimadda ama daad socdo galay ama xorfado ku dabaashay dhalinyaro ilaa 4 meeyda booliisku gacan soo saareen xalay ilaa maanta taana waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay ka taxadiraan ama iyagoo naftooda ilaalinaya aanay isku biimayn togaga socda ama xorfadaha ama balliyada biyuhu ka buuxaan iyo barkadaha waxa soo dhan waxa jirta ciidanka booliisku inay sameeyeen guard fixed surveillance ama patrols
boliis batrool wareegaya oo istaagaya meelaha laga tallaabo ee biyaha dooxyadu marayaan iyo kormeer lagu samaynayo xirfadaha iyo balliyada dadku markay isa soo taagaan meel biyo socdaan hadduu baabuur wato ha sugo inta daadku waa muddo yar wuxuu ku dhammaanaya daadku ha sugo oo naftiisa iyo dadku sida iyo hantida uu wado yaanu ku biimayn waa sababta dad intay sugi kari waayeen ugu dhinteen boliiskana amaradooda ha la qaato askarta taagan siiba caasimadan Hargeysa meel kastoo dooxa laga tallaabo ciidan baa istaaga marka daadku soconayo waxa loo baahan yahay dadweynuhu ama gaadiidleyda ama dadka lugeynaya inay qaataan amarada ciidanku kaga joojinayaan inay ka tallaabaan waqtiga dooxa biyuhu soconayaan dadka baabuurta wata iyo dadka lugeynayaba qaar badan baa dhinac ka dhaafa boliiska dabeetana ku haligma waxbadso wax beel bay leedahay arrintaana dadka waa uga digaynaa ugu dambeyn waalidiinta waxaanu uga digaynaa caruurahooda inay ka ceshadaan dooxyada biyuhu ka socdaan ama xirfadaha lagu dabaasho ciyaal ku dabaashaane biyuhu galaan ama balliyada si ay u badbaadiyaan naftooda taana waalidkaan uga digaynaa